ninkan yaa Siciid Cabdullaahi Deni ma ka hadli karaa baarlamaan xil cid ka qaaday ama baarlamaan cid xil ka xayuubiyey isaga oo gacan ku dhiigle ah itabdi kelmadaas gacan ku dhiigle weeraray xaruntii baarlamaanka Puntland ee uu isagu maamulka madaxweynaha ka ahaa intuu weeraray kullaayay ilaaladii joogtay oo dhiigoodii oo qoyan oo aan meydkoodii la aasin haddana kuwii joogay intuu $20,000 u qaybiyey yiri codaya ilaa iyagu doonis ma lehe $20,000 intuu u qaybiyey 58 xildhibaan ayuu habeenkii wuxuu siiyey $20,000 xaqiiq ma aha waxaan been ku been abuuranayo ma aha waxaan iska mumarayo waa xaqiiq cad oo dhaba oo cadaan ah isagoo waxaa sameeyey oo gacan ku dhiiglahaasa oo sharci darro sameeyey kow weerar iyo dil gacan ku dhiignimo ah haddana laaluush hantidii ummadda u adeegsaday iyadoo waliba tiro badan oo $20,000 ku bixiyey inuu guddoomiye meesha ka saaro isagoo dastuurkii Puntland ku tuntay oo jamiyey waxa raaca haba yaraatee oo ama golaha baarlamaanku leeyahayna aan loo marin xilka qaadistii guddoomiyenimada dhoobo dastuurna aan loo marinin ma ka hadli karaa maanta dastuur baa la jabiyey ama habraac baa la marin ama cid baa xilkii laga qaaday miyaan afkiisa iyo dhagihiisu ismaqlayn ilo sheedhow ama umulbaa miyaanu xisaabtamin miyaanu wuxuu ku hadlayo waxa kaga soo noqon kara garan karin miyaanu fahmi karin waxa uu shalay sameeyey maanta inuu cud ka eedeeyaa inay dhaawac isaga gaadhaya iyo sharaf darro iyo karaamo darro ay tahay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa isma arkaa islaam rogay isma arke baa islaam rogay waayo ninkii shalay wixii looga sameeyey oo maanta ka hadlayo oo leh cid baa sharci darro xil lagaga qaaday anigu hore waxaan u sheegay Soomaaliyeed ama reer Puntland Deni inuu marmar caadinimada ka baxsan yahay horaan u sheegay wada hadalladii horaan ku soo daray